عليكم ورحمة الله وبركاته وانا wada salaamo channelkay kusoo dhawaada waxaan rabaa inaan la qaybsado saliid timaha loo sameynayo iyo maqaarka inta badan timaha iyo maqaarka masha Allah timaha soo baxayn ciladaha fara badan qaba timaha ma daragtay dandruff-ka qaba amba waxa loo yaqaano taxabta amba caruurta eczema leh timaha ugu baxayn kullu maqaarkoogu caruurta aad qalalku ku soo noqnoqdo kale qaabka loo sameeyo marka inii sharaxaya masha Allah waxay ka kooban tahay baahantahay cocoa butterka wada taqaaniin waa butter dabiiciya shea butterka oo skinka maqaarka timaha labadaba waa loo isticmaalaa soo labadaas la rabaa masha Allah number 1 timahaaga qalal damba kuma arkaysid kan waa beeswax wuxuu ka dhigayaa waxaan oo dhan sida creamka noqonayaan marka la tusi doona insha Allah in la qaybtami doona sida creamka kale noqonaya waayo waxa cream ka dhigaya waa beeswax haday ka maqan tahay saliid ahaan buu kugu joogayaa laakiin inaad cream ka dhigatid hadaad doonaysid beeswax-ka waa inaad heshid halkan waxa 200 gram hadaad soo qaatid kana 200 gram hadaad soo qaadatid kan waxaad sameynaysaa qaadada weyn wax ku cunno iyad ku darsanaysaa kan qaadada yar weeyaan waxa weeyaan malmasheeni oo la soo daqiijiyay marka qaadada yar ee teaspoon-kaad ku darsanaysaa halkan waxay noogu jira geed la yiraahdo rosemary iyo geed la yiraahdo horsetail way isku eegin saad u arkaysiin lama kala saari karo walaalaan hore u arag waxay ku noqonaysaa hal geed inuu ku jiro moodayaan walaalaha qaar waxa weeyaan kani waa malmasheeni masha Allah wada naqaanay marka rosemary wuxuu jiraa maqaarka skinka iyo maskaxda dadka xasuusta ka tigto kale shahaanada cabaan oo kale waan la qaybtami doonaa insha Allah dadka xasuusta iyo waxyaabada u baahantiin shaaxyada xasuusta kordhiya masha Allah aad u fiican yihiin dadka xasuusta looga baqayo inay ka tagtay siiba wadanadan khatar baa lagu jira qofka aduna naftiisa ilaalin geedkan waxa weeyaan malmal sheedukeena waxa laga sameeyaa kareemada qaaliga ee anti-aging-ka maqaarka waayo maqaarka masha Allah way soo nooleysaa tinta waxay u bixinayso waayo tintu meeshii ka soo baxaysay ayay masha Allah waxay ka dhigaysaa daldalooladii oo dhan bay furaysaa maqaarkii bay soo nooleynaysaa tintii markaa way soo baxaysaa masha Allah number 1 bay tinta ku tahay ha ka baqin inay siifad yeelato waayo waxaan la isticmaalanaa waxyaabo kale oo ka baabiinaya siifada sage isaguna waa maraamiya gabdhaha doorka caadada iyo waxa soo kale aad ugu fiican shaxaan iyaguna ka dhigtaan sage-ka kan waxa weeyaan horsetail baa la yiraahdaa shaxaan waa loo cabaa akhwaati maqaarka iyo timahana number 1 buu yahay waa geed u eeg marka loo eego rosemary-ga laakiin wax yar bay ku kala duwan yihiin isaga iyo rosemary-ga saad u arkaysiin wax badan kuma kala duwan qofku markuu sheeda ka arkayo masha Allah marka walaalaha waxaan leeyahay inaad si fiican masha Allah marka hore waxaan rabaa inaad marka hore waxaad sameynaysaa dab baad dhisti saaraysaa biyo ah bool baad hadaba sii dul saaraysaa boolka markaad saartid waxaan rabaa saddexdan ayaad ku shubaysaa biyo kuleelkii hoose ee distiga toos uma saaraysid distiga markaad saartid weel baad sii dul saaraysaa saddexdan aad isla dhalaalinaysaa markay dhalaalaan ay saliid noqdaan ka bacdi waxaad ku daraysaa qaado yar oo marmasha qaado yar oo horsetail qaado yar oo sage qaado yar oo rosemary inta markaad ku dartid masha Allah muddo markay saddex gasho dabku waa inay u naaqusnaato xabeebti haddii dabku kor u qaadan tahay way ka gubanaysaa lama rabo nuxurka inuu ka tago dabkii oo naaqusan dabka markaa saliidda markaad dibadda ka soo dhigtid inay xoog kaaga wada qabowdana lama rabo haddii xoog u qabowdo waxay sameynaysaa waxa isxidhaya markiiba saliidda oo waxa ku jira beeswax cream bay noqonaysaa saliidan masha Allah maha inay saliid ahaan kugu joogayso sida kareemada lagu iibiyo suuqa kale ku noqonaysa maqaarkana wada isticmaalaysaa masha Allah soo markaad ka dhigtid wax yar ay dabka kuleelkii ka baxdo wada qaboobin waxaad soo qaadanaysaa lagaaga baahan yahay saliidda fooxa 25 dhibcood ayaad ku daraysaa saliidii 25 dhibcood tab weyn aad arkaysid waa saliidii fooxa carabaha saas u weyn tahay saliidoodu wadanadeennana si essential ku saas u yartahay waxaan kaloo ku daray saliidan aad arkaysiin oo 10 dhibcood aan ku daray masha Allah wixii oo dhan markaas waxaad sameynaysaa maashinka gacanta soo qaadanaysaa cream bay noqonaysaa cream markay noqotana kale arag masha Allah timaad u marinaysaa masha Allah timii kale arag bay noqonayaan maqaarkii kale arag buu noqonayaa masha Allah lagama sheekeyn karo isbedel fara badan buu qofku arkaya marka muhiimadu waxa weeyaan akhwaati ina waxa gurigiina ku samaysataan waxyaabo badan oo waxa jira jirka isbedel keenaya amba qofka timihiisa iyo maqaarkiisaba uu isbedel ka arkayo
waxaana waxba kuma fadhiyaan saad u arkaysiin muddo dheerna way ku haynayaan waad ogtiin labada saliidood oo kaliya tood iibsateed mooyaane waxaan kale waad ogtiin markasta hadaad dib u samaysay family ahaan waxay ku haynaysaa sanado maasha allah isma bedelayaan saliidaha xitaa waa muhiim waxay sameynayaan siifadii bay ka qaadayaan siifada malmasha ma urayso akhwaati saad ogtiin maasha allah innaka mudayna in urayso laakiin malmashu ma uri doonto waayo biwaxkuna isku xiri doonaa oo shaygu saliid ma noqonayo korkaaga markaad marisidna leeshay noqonaysaa maasha allah isbedel fara badan baa lagu arkaya qofkii xitaa wuxuu arkayaa inuu anti-aging maasha allah noqonayo oo jirhkiisii si yaraanayo qurux qofkii egsiimada lahaa egsiimadu way ka tegaysaa qofkii dandruffka maad aragtay amba tuxabtoo kale maasha allah tuxab dambe kuma arkaysa ilmahaaga hadday tuxab leyn amba timo ay baxayn oo kale maasha allah waa saliidaad gurigaa ku samaysanaysid biwaxku waxa ma joogo jaa batarka waxa ma joogo waad ogtiin coco batarka waxyaabadan oo dhan waad iska heli kartaan akhwaati saliida fooxan waa muhiim bay tahay inaad asliga soo iibsatid asli marka lagu leeyahay kulley hoosta waa niigu soo qoraya magacaa ku qoraysaan aad raacinaysaan meel la garanayo oo essentialada fiican kasoo iibsada waa muhiim maqaarkaan u isticmaalaya ku dhe because qaar maqaarka loo isticmaalo iyo qaar cabitaankaa jira essentialka waana kala tusi doonaa qaaraan cabo baa jirta oo cabitaan ah essentialka la yidhaahdo iyo qaar waxaa jira maqaarka loo isticmaalo qaar guriga lagu shidaa marka saliidaha way kala baxaan maasha allah kan kalena timaha wuxuu siinayaa nafaqooyinkii nafaqadii vitaaminadii oo dhan buu siinayaa markaan ugu daray 10 dhibacood vitaaminadii uu jirkaagu rabay iyo kuwii timahaagu rabay bedelka afka ka qaadanaysa amba kuwa timaha dadka qaatay cidiyo oo kale waa aragteen tabtii oo kale waaye marka maasha allah qofku isbedel fara badan buu arkayaa korkiisii iyo timihiisiiba marka skiinkaagana maasha allah waad marsan kartaa saliidan waxa ma diidayso waxaan nagu boorin lahaa insha allah inaad samaysataan feedback soo celisaan insha allah ducadana nagu soo kabtaan maadaama maasha allah wax badan la sharing gareynayno anigana insha allah awadani waan wax badan nagu soo dhigo insha allah nala sharing karo waan jecelahay halkaasaan markaa insha allah iskala soconayna wixii su'aalana way soo qori kartaan waxaad fahmi weydeen waa nid faahfaahin insha allah waxaan jeclaan lahaa insha allah inaad fahantiin wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu akhwaati insha allah ka warkeena faa'iidadana soo celiya insha allah